بسم الله الحمد لله الله وين واحد كأيام هذا ورنا سكله حدونا يعني كهالله أرنتا شركة قلمدوب كصعدة اللي هذا يدور شوين كيو سيد مدة الصومالية دي اللي كلبور كوجود بالهاد ورك كاي معنا يا حسب قلمدوب إنه سمراب شيء يعني إن إلا يا هذا maanta ay taariikhdu tahay 2020 bisha 7 22 ilaa hadda inaan wax afkarada laga gaarin shirkaas waana wax la filayay oo baahan wax hadda ummadda Soomaaliyeed ku cusub shir oo farmaajo galay madaxweyne farmaajo shir oo galay oo ka qayb galay ee guul ka keenay oo ummadda Soomaaliyeed ay ka soo saartay wax lagu midaysan yahay hadda ka hor loo arag intaas oo shir oo galay shirar badan oo galay hadda ka hor ku galay Puntland ku galay Baydhabo ku galay magaalada Muqdisho oo maamul goboleedyada iyo dadka Soomaaliyeed oo la hadlay waligiis wax natiijo kama soo saarin ta Muqdisho waxa kamid ah midii madaxweynayaashii hore Sheekh Shariif Sheekh Ahmed iyo madaxweynihii hore Xasan Sheekh uu kula yeeshay waa wad meeshii ku dambeeyay marka wadaadka farmaajo ah sidiisuba ma aha nin wada hadalka ku fiican ma aha nin ma aha ay sheeg tanasul leh ma aha nin mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed ka fikira ma aha waa qof uu koox la taliyaal ah oo aan mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed ka fikirin laakiin ku fikira inay xukunka ku dhaganaadaan ayaa la taliya waana un haraadigi siyaad barre waaye la taliyaashiisu wuxuu badan yahay haraadigi siyaad barre iyo dadaan meel dheer wax ka fikirin iyo dad uqdadaysan adii dad noocaasa la taliyaal ah marka madaxweyne farmaajo kuma wanaagsana inuu sameeyo wada hadal inuu ummadda Soomaaliyeed wax cuntumo keeno inuu tanasulo in uu maaragtay shirkaas ka mira dhaliyo ujeedkiisu maahan markii hore meesha wuxuu tagay ayaa la qiyaasayaa inay yahay inuu fashiliyo shirka sidii ay ku socotaa laakiin waxaan filayaa waxgaradka iyo siyaasiyiinta iyo aqoon-yahanada bulshada rayidka odayaasha dhalinyarada gabdhaha dhammaan qaybaha bulshada oo dhan aan qofna aan ka tagin inaysan arintaas farmaajo maanta wixii ka dambeeyay laga yeelin farmaajo wuxuu ugu talagalay shirka inuu fashiliyo qolo mursal iyo koox meesha u joogana inuu dib ula noqdo oo dhahdo waxaan aan soo sameynay waa lagu heshii waayay adiga go'aan qaata go'aan ay qaataan 2 sano ku darnay doorasho qof iyo cod hal qabana oo saas uu doonaya ujeedkiisu saas waay inay mustaqbalka inuu xukunka dheeraysto saas uu ordayaa haddii farmaajo lagu daro 10 sano oo dambe haddii lagu daro xataa doorasho qof iyo cod oo xalaal ma qaban karayo doorasho laga qaban waayay Afrika oo dhan laga qaban waayay oo qof iyo Kenya ugu dambeysay allaasi ka dhacay dacwad inta ka dhacay inta iska day wareegta dhibaato laga mar aan malay karto ma farmaajo oo gurigiisa aan xukumin oo magaalada Muqdisho maaragtay xaafadaha kamid ah oo san xukumin oo aan lahayn xataa degmooyinkii dad soo doorta oo diiwaan gashan aan jirin iyo doorasho qabana ma jawaabtu waa maya marka madaxweyne farmaajo wuxuu doonayaa ummadda Soomaaliyeed inuu dhibaateeyo wuxuu doonayaa inuu xukun ku dhaganaado waana ogaa doontiin farmaajo sida wuxuu wado hadduusan wax iska bedelin oo uusan cabsi iyo wax intuu dareemo uusan isbedel samayn arintaas dagaal ay ku dhamaan doontaa warkaas iga qoro anigoo ah Garad Cabdullaahi iga qoro maanta dagaal ayay ku dhamaan doontaa sababtuna waxa weeye tanasul ma laha ma xishoonayo wada hadalka wax ka keeri maayo maanta oo dhan waxaan jirin ummadda Soomaaliyeed 4 sano ayuu ku qasaarshay 4 sano ku dhawaad hadda 3 sano iyo 6 bilood ay maraysaa intaas uu qasaarshay wuxuu doonayaa 4 bilood oo hartana inuu shir baan ku maaweeliyo oo yiraahdo waqtiga dhamaaday xataa doorashada dad badan la siyaasad mooyaan laga gaaro inuu halka hadda la soo istaago doonaya
wax kale ma hawjeedkiisu ummadda Soomaaliyeed inuu gooyo meeshaas taagnaado wuxuu aaminsan yahay dhagaxaanta waaweyn oo ujeedku ku gooyay inay difaaci karaan iyo kooxaha durbaanka u tumaya ee u badan gulwadayaasha lagu daro xooga wadaniyeynta waxaas uu isku halaynayaa laakiin kuwaas ma ahan kuwa difaaci doono mustaqbalka ma aha bal u fiirso ballan ma laha oo farmaajo ballan weligiis ka soo baxay lama arkin ma laha kuma wanaagsana wada hadalka iyo dadka maarta la taliyaasha iyo waxaas kuma wanaagsana tusaale hadda ugu dambeeyay waa shirkii Somaliland oo la galay waxna jijaa oo maanta ilaa hadda ka soo baxay oo ummadda Soomaaliyeed ay wax la taaban karo ama la maarta la qiyaasin karo ma laha waa ka hadda wararka ugu dambeeyay uu istaagay shirkii waa lagu kala tagay weligii hiday dhaqan buu ma laha inuu shir tag galo wuxuu guul ka keeno hiday dhaqan buu ma laha saas aawadeed wuxuu doonayaa sidii shirkii Somaliland inuu waqtiga dadka ka dilo oo uu yisheeg oo asbuucyo iyo yiraahdo igu daro shirka dib aan soo noqono ka bacdi inuu halka ku fashiliyo oo intuu kooxo iyo abaabulo uu yiraahdo waa la diiday ama aqbada kale uu sameeyo ama go'aamo kale uu qaato sidii caadada u ahayd inuu halka ku burburiyo shirkaas gobosha nabadda ee Galmudug inuu halka ku burburiyo ummadda Soomaaliyeed mustaqbalkeeda mugdi u geliyo ka bacdina dagaal ay gacan ka hadal iyo dhibaato cusub ay tagto ama wuxuu ku tashanayaa beesha caalamka inta soo dhex gasho inay tiraahdo ninkan 6 bilood uu dara hana aragta asagana road map loo sameeyo beesha caalamka gacanta ku qabato oo dawlad ku meel gaar dib loogu cesho Soomaaliya sidaas ayuu doonayaa waxa weeye waxaan leeyahay tawfiiqda Allahna waafajiyo magacaygu waa Garad Cabdullaahi ujeedkayga ma ahan inaan farmaajo dhaliilayo laakiin waxaan doonayaa inuu wadada saxda ummadda Soomaaliyeed ku hogaamiyo waxaan doonayaa Soomaaliya nabada horumarsan sidii isu dooro jirtay si ka wanaagsan isku sii doorata hore u socota hadba meel istaagta saas ayaan doonayaa